بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونحسن داوداش دا قيمة قدر انت نقدر نكون سو دوادا وليس خاص تلفزيون كون كيبل تي في ولا شيء هوغاميه حزبك معارض كودني حرتي حاج علي حسن اد هوغاميه ومهاتين وليس نوسي تلفزيون كون كيبل تي في هوغاميه هورنتي waxaad soo gasheen wadan ahaan oo la xoogan guud ahaan sawirku waxaad naga siisaa qaabku sidoo loo ahaa iyo sawirka guud ee maanta xisbiga wadan u taagay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله runtii orole aad iyo aad u qiimo badan oo iyo doorasho ayaynu soo galay Soomaaliland oo dhan sinamada uga dhacday orole runtii aan isla xilliga ugu xamaasada badnaa oo aan noociisu hore u soo marin oo nabadgelyana inoogu dhamaaday inkastoo dhacdooyin ay dhaceen marar dambe ayaynu soo gal waxaan isleeyahay hadday tahay xisbiga wadanina qiimo weyn bay u lahayd kaalintii uu ka ciyaaray doorku ku lahaa xisbiga Soomaaliland guud ahaan hadday tahay Soomaaliland magaca qaranka Soomaaliland iyo sharafta dadkeena korba u qaaday inuu nahay qaran koray oo kaalin galay ay u muuqatay marka dunida iyo dadku ay kaaga waramaan qofka hadii jira garoonka ku jira si waxaan uma qiimeyn karo laakiin intii dibadda iyo gudahaba dadka nagala soo hadlaysay ama la kulmeen waxay tilmaamayeen inuu ahaa orole aan runtii ka dhacaynin kuwa dunida ka dhaca ama waxa weey levelkii dunida runtii ku soo dhow doorashadan waxay u dhacday si nabadgelyo waati hogaamiye xisbiga mucaaradka wadani muddadii loo socday muddadii ka horeysaba si xoogan buu gobolada iyo deegaanada ugu soo bandhigi jiray ololeysa dad badan reer Soomaaliland iyo kuwa taageerada waxay isweydiinayaan waa maxay sababta keentay in wadani uu ku guuleysan waayo kursiga talada wadanka ugu sarreeyay xamso maanan guul daraysan laakiin si waxaanu gaari weynay wixii aanu doonaynay oo ahaa inaanu talada dalka qabanno taasuna waa wax loo tartamo oo hadii jeeraale marka la tartamayo inaad waxa doonaysa gaadhay inaad gaari weydo labadaba waa suure sabab dabcan way jireen saad weydiinayso sabab way jireen waana badan yihiin annagana waa laga yaabaa in xagga ka timaado sababo aanu tirsanayno runtii in ay gacmo kala soo galeen iyo inaanay doorashadu madmadow ku gadaanaa oo marar badan xusnay intuba way jireen aan wax ka tabayno laakiin sidoo waxa soo dhan wax isku fuuqsaday waxaanu aqbalay wixii ka soo baxay marka waxa way mar hadii wax soo baxaan waanu aqbalay wixii ka soo baxay waxba iminka wixii hore dib uga noqon maayo waxa runtii la wada oo socda daraasad ku saabsan wax dhacdadii dhacday iyo waxa weeye in daraasad lagu sameeyo si dhameystiran oo xisbigu uu qorsheynaya in si dhameystiran maxaa keenay inaynu gaari weyno oo awoodii aynu lahayn iyo int filashadeena maxaa hoos uga dhigay iyo sidoo kale maxaa ku soo kordhay doorashada oo warwar runtii uu jiro waa markii uu horeysay warwar noocaas yimaado inay gacmo kale ina soo galeen iminka ka hor dhici maayo oran maayo hebel iyo hebel bay ahayd laakiin baaritaan iyo waxa weeye teamka loo saaray waxa ay soo saaraan baan ka sugaynaa insha Allah taala waqtigeeda waati hogaamiye xisbiga mucaaradka wadani muddo 4 sano jiray aduna waxa kamid hogaamiyaasha sare muxuu noqonayaa mustaqbalka wadani waxaan ku celinayaa horta xisbiga iyagu guul buu gaadhay oo yani waxaanu doonaynay maanan gaadhin laakiin guul baanu gaadhnay xisbigu wuxuu ahaa xisbi 5 sano u horeeyay jooga waxaanu gilgilay adarkiisa aad baa tilmaamaysaa dadkoo dhamina marag furay wuxuu gilgilay ama qarka u saaray codadkana kasbaday in ka badan 40% anagoo waliba toonsan sida aan sheegayna ka badnaay marka waxaan aaminsanahay runtii inaan u soo baxnay final kalkii u dambeeyay laakiin qadarka Ilaahay aan dhicinaano inaan ku soo ku fadhiisano oo ninkii musharaxa ku soo ku fadhiistaa aan dhicin marka de guul darro tirsan mayna xisbigan wuxuu soo gaaray halkaas oo waxaan aaminsanahay insha Allah taala in xisbigu hore u sii socdo wax noo qorshaysan xisbigu inuu isweydiiyo taa aan sheegayno baaro maxaa dib u dhacay nagu keenay iyo maxay nooga gudbaynaa ayuu isweydiinaya shirar iyo gudiyo iyo farsamo intaba waa la wadaa wax rajeynaa insha Allah taala inuu laba kacleeyo oo insha Allah taala ciyoon oo dhaqsale waqti ugu horeysa doorasho uu iska muujiyo kaalinta uu soo gaaray inuu halkan soo gaaray inuu hore uga sii socdo laakiin ma dareemayo wax dib u dhacay wax moral jaba midna muxuu noqonayaa kaalintii dhinaca mucaaradnimada xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Bixi Cabdi inagoo ogeyn in mucaaradka aduna shakhsiyadda kala hortimid hogaamiye xisbiyahan markii shirkii golaha dhexe tii dambeentaba muxuu noqonayaa kaalinteedu waa xisbi mucaarada kaalintu ahaan jiray ayaanu qaadanaynaa si dhameystiran u qaadanayna insha Allah taala وهذا معها أرين شخصي هو موسى إيو
khusaysa ama xirsi khusayse muuse maalintii hore uu nala tartamay oo wuxuu joogay daafta oo halkuu imika salaakiisa kursiga uu fulo madaxweyne marka halkii uu soo dhaafay laakiin anagu waxaan u taaganay inaanu ahaano mucaaradad waxa weeye caafimaad qabta xoogan kaalinteeda gudata insha Allah taala imika sida waxaan mucaarada waliba soo bixino muuse wax kama soo bixin dawladina ma dhalan aniguna xadad xirsi ahaan weydiisay tii cirana waxba kama sugaynin oo uma sharaxnayn inaan wasiir noqdo horana waanu sheegay tamuusana waxba ka sugi maayo oo nin u sharaxan ma yihi laakiin se kaalinta mucaarad baan aniga iyo xisbiga qaadan doona insha Allah taala wad hogaamiye natiijada doorashada Soomaaliya xisbiga wadani uu aqbalay waxaana imika magaalooyinka Cergaabo iyo Burco iyo Hargeysa laga dhawaaqay shir lagu magac daray in xubno ka mid ah taageerayaasha wadani oo ay doonayaan inay ka tashadaan mustaqbalkooda waxaana shirkaasi ka hadlay xubno ka mid ah xisbiga wadani oo sheegay in beelaha qaar ay shirkaasi qabanayaan maxaa ka soo shirkaasi waxa weeye waxay xaq u leeyihiin taageerayaashayadu ra'yigooda inay cabiraan iyo inay dareenkooda soo gudbiyaanba waa dal dimuqraadiya xor bay u yihiin laakiin se talo xisbigu iminka uu ku tashaday inuu shirka ku qabto oo maamul iyo hoggaan buu leeyahay oo iminka naga soo go'day ma jirto haddii se timaado ama meel fog ha laga soo sheego ama meel dhow ha laga soo sheego ama meel dibadda ha laga keeno hadday talada timaado aynu tala isugu nimaadno waa markeeda iyo maalinteeda laakiin se hadda deegaanadu inay cawdaan xaq bay u leeyihiin oo ka cawdaan maamulka jira inay tabashadooda iyo waxay tabayaan iyo waxay doonayaanba sheegtaan xaq bay u leeyihiin inay hadday xisbi ahaan anaga yiraahdaan aan tashano aan tala isweydiino xaq bay laakiin se wali ma dhicin imanka tala xisbigu uu ku go'aansaday inuu ama Burco tago ama Cergaabo tago oo yani qorshe noocaas hadda wali ma dhicin waxaan rajaynayaa insha Allah taala tala mugla markeeda la isugu imanaya hadda gudoomiye dalka dibadda kaga maqan yahay oo yani wuxuu joogaa Nairobi safar oo gaaban ku tagay maalinteeda iyo marka talo loo baahdo iyo waxa laga tashanayo la isweydiinayo laakiin se imika waxaan arkayaa deegaano kamid ah haday cabasho dareemayaan haday tala doonayaan dadkoodu wuxuu soo jeedinaya wax saameyn oo guud nagu malaha wad hogaamiye muddadii doorashada socotay iyo natiijada dadku waxay keentay inay kala qaybsamaan qabyaaladiiba aad u xoog badnaatay waxaad moodaa Soomaaliland qabyaaladu meel imka saray marayso oo digri saray marayso sideed baad isleedahay adigoo muddo badan maamulka imka ku jiray waa lagu dawoon dadkii dib baa loo soo celin karaa walaatanimadii ay la soo celin karaa wad mahadsantahay runtii anagu waxaan u qorsheynay oo u sameynay wax la yiraahdo adigoo graan aan sameeyno lahayn dalkoo dhan isku xidhno campaign-kaygu wuxuu ku saabsanaa qaranimo qolo iyo reer iyo qoys iyo magaalo midna maana target gareynay waxaan u sameysanay yani xilliga oo ku talgalkaygu ahaa markaanu talada dalka ku guuleysano qorshaanu kala hayn inaanu dadku sida noo mideyn lahayn dib ugu mideyn lahayn qoladii laakiin se jeegaanta wadeeyay imka u taala sida mideynaysa anaga shaqana u taala wixii na laga codsado ama kaalinteeda qaranimo nagaga beegan waa markeedii maalinteeda laakiin se anagu talada dalka ma aanan qabano anaga imka la weydiin ma waxaan filayaa qolada talada dalka wata weydiinaysa waa hogaamiye baraha bulshada Facebook waxa lagu faafiyay muuqaalo muujinaya adigoo meel beer taagan waxa leeyahay siyaasadu kana sanaya arkan maxaad ku leeyahay runtii beer aan soo maray aan qiyaasayay oo qorsheynayay arrimaha horumarka beeraha iyo sida looga faa'iideyn karo wada mid personal tahay mid dadka bulshada tahayba ayay ahayd laakiin oo waxay beertan Kuwaitiga ayay ahayd oo meelaha runtii tusaale loo soo qaadan karo dalkeena horumar laga sameeyay ana waxaan jecelahay development kan jecelahay marka development ahaan baan u Soomaaliya laakiin wax siyaasadan ma khuseyn siyaasadana ma qorsheynin inaan ka hadhay waxaan isleeyahay imika aad casanka u saartido waxa weeye ku soo yani ku qaadid weerarkii ugu dambeeyay ku qaadid laakiin siyaasadda waqti aan ka hadho ma joogo kuma talagelin waxa laga yaabaa maalmaha kamid ah way dhici doontaa laakiin maanta kuma talagelin wad hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi imika xukuum cusub soo dhisi doona waxaan dad badan imika la isweydiinay qaabka xukuumadda noqon doonto inaba talaabo ku darsanaysan haddii la baahdo in xukuumadda cusub talaabo laga bixiyo qaab ku dhisan anaga runtii diina la weydiiyo waa markeeda imika lama weydiin marka waxaan la weydiinaa laga waramo waxa kullayba anagu xisbi mucaarada baan nahay taladayada iyo qorshaheega waa noo gaar saan dalka u maamul lahayn saan wax u gudbin lahayn waa noo gaar wixina laga codsado waa markeeda cidiina weydiisa laakiin iyo waxay tahay qusayso
marka de may soo gaadhin halkaasoo iyaguna waa cusub yihiin weli taladiiba dee lama wareegin goor anaga waxna weydiiyaan iyaga weli taladii lama wareegin oo madaxweyne la doortay dee weli lama wareegin taladii marka waxaynu sugaynaa insha allahu tacaala inaan ka hordhacaynin tallaabooyinkay qaadaan ayaynu sugaynaayo hadday tahay waxaanu ka odhanayno iyo hadday tahay halkaanu iska taagayno iyo hadday tahay daan talo ku birino markaasaan la sugayna inagoo su-aalo kale soo noqdo waxaan jeclahay markiina qodob kale aan ku weydiiyo dhowaan madaxweynaha dalka maraykanku Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimadda Israel ka hogaamiyaha sarkaarkaas wallahi dee waxa weeye Qudus waa muqaddasaadkii islaamka waxay ka mid tahay meelihii loo cibaadada loo jideeyay xaramka hortii loo tukan jiray ee qiblada u ahaa muslimka marka waa muqaddasaadkii islaamka oo wax kasto islaamka dib ku ay waxaan arkayaa runtii inay dib yihiin waxaan arkayaa runtii inay qalad iyo qadaf ku yihiin wixii islaamka dib ku ah aad baan runtii uga xumahay dareenkayga shakhsiyadeed aad weydiiso ka madaxana waa arrin ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto taabanaysa oo muqaddasaadkeeda in lagu xadgudbay in si gaar ah cid loogu xidhaabo ay qalad tahay laakiinse marka waxa aad ba iga yaabisay oo aan aad ula yaabanahay waxa bayska xataa yani ama wax lagu saleeyay in hadiya jeerale ictiraafku laba way baan u aqaanaa ictiraafku leeyahay dawladda qaar waxay ictiraafaan dalka qaar waxay ictiraafaan maamulka yani dawladda marka dalka ama la ictiraafa ama dawladda la ictiraafa umaynaan arag waa dhacday inagu cusub caasimad baan ictiraafaya cid leedahay caasimadda dalka leh baa ayaa qorshaysta sharciyeysta aqoonsada dal kale imika Hargeysa inoo aqoonsan maayo oran maayo Hargeysa idina caasimad ama Boorama idina Burca idina oran maayo laakiin dalka ama la aqoonsada ama dawladda la aqoonsada labada nidaam dawladdu leedahay marka de waxa ila tahay inay bartirayn iyo waxay xadgudub ku tahay islaam aad iyo aad uga xuma waa hogaamiye intii uu socday xisbiga kulmiye iyo dadka siyaasadda aan gol waxay ugu eedi jireen xisbiga wadan ahaan in lacag ka soo qaateen Soomaaliya gadar oo lulina xoogan yahay iyagu sheeg jiray lacag badan dadkii aad siinaysan lacagta keentay ma jirin haba yaraatee wax lacag dibadda naga soo galay oo naga soo gaaray ma jirin ama ciidan gacan saar leh gadar babalihin yani wax xiriir ma lehin iyo gacan saar toona Soomaaliya hadalkeeda aynaan isku qorshaba ahayn oo aynu ku kala duwanahay inana waxaan doonaynaa in dal madax banaan noqono iyana waa bayna sheegay marka dal aynu shaqo isku leenahay maaha inkastoo anakii aadaymo raqiis oo qodobka kulmiye oran jirtay laakiin se waxa la yiraahdaa hadii jeerale dhaqaalaha looma kala badiyo sida loo kala dhaqaale badan yahay sida dhaqaalaha u habaysato ayaa loo kala badiyaa marka anagu runtii waxaanu ku dadaalaynay inaanu dhaqaalahayaga si wacan u maamulno marka intiina soo galeysay naga soo galeysay taageerayaasheeda naga soo galeysay waxa weeye membershipka xisbiga ayaan si wacan u maamulnay taasuun baa qorshe wanaagii iyo maamul wanaagii aanu sameeyay aanu ku sameeyay oo lahayaga ayuun bay qoladaas mala is yaahdeen lacag weyn baa soo galay oo iyagu tii dawladda iyo tii dhulka kale ay ka heleenba waxay ishaadana u qawadeen untii anaga waxa weeye xaqayaga yani aan ku maamulanaynay laakiin se ma jirin haba yaraatee wax meel kale naga soo galay inta yareed baan si wacan u maamulan waatay marka imika dib isku timaadaan laga yaabaa in dib loo eego mustaqbalka xisbiga lagu sameeyo isku shaandeen xilaalka xisbiga oo dib aad u qiimeysaan oo dib isku abaabushaan qabsan ku jirta dabcan mar walba waxa iman doona xisbiga inuu dib isu eego oo talaabada dambe u qaaday dib isu eego waana ku labada shay koobaad inuu yaala bay tamidi maxaa keenay inaynu gaari weyno waxaynu doonaynay oo inaan ku guuleysan talada dalka mid labaadna waxa weeye what's next so xageen uga dhaqaaqayna talaabadaynu qaadayno iyo sidaynu isu abaabulayno iyo sidaynu isu qorsheynayno marka labada su'aalood ugu horeysa miiska noo saaran bay kamid yihiin taageerayaasheeda iyo hadday yihiin kaadirka xisbiga iyo hadday aqoonyahanka intaba inagoo isla kaashanayna ayaanu eegaynaa talaabadaas aan u qaadayno markii ku haboonaato insha Allah taala waatay hogaamiye xisbiga wadani in badan mucaaradaha wax laga yaabaa taageerayaashiisu inay isweydiiyaan mar kale mustaqbalkiisa waa maxay fariinta ugu culus u diraysa taageerayaasha wadani oo leedahay waxaan sameyn waxaan u dirayaa runtii taageerayaasha wadani mustaqbal fiican baynu leenahay xisbigu meel fiican buu soo gaaray guulo waaweyn baynu ka soo hoynay oo ay ka mid tahay halkii aynu hadday tahay dalka oo dhan ololihaynu ka galay iyo dadaalkaynu ka galay iyo hadday tahay intii aynu ka helay iyo hadday tahay inta aynu tabayna in waxa weeye ayna weydaarteen ama si qaldan inooga dhacday
in yani meel fiican buu soo gaadhay oo muujinayay inuu talada dalka la wareego ama qarka u saaran yahay ama inuu tuunsanahay inuu codka u badnaa helay halka waxaynu ku soo gaadhnay dadaalkii waxaan leeyahay dadaalkaasaynu laban laabaynaa kaasaynu sii wadaynaa kaasaynu ka midha dhalinaynaa kaasaynu insha allahu tacaala ugu sabraynaa waxa weeye xisbigu maadaamuu soo gaadho hadda finalkii soo taagay waxa u hadhay tuuriyada labaad oo ku taga talada dalka marka qof walba waxaan leeyahay oo muwaadin ah oo reer Somaliland waxaan leeyahay aan u adkaysano aan isgarabsano aan isu dul qaadano aan sugno maalinteena aan waxa weeye insha Allah taala u diyaar garowno maynaan gool dareysan waxaynu gaari weyni waxaynu doonayno waanu gaari doonaa insha Allah taala hogaamiye maanta arbacada xaflad baa madaxweyne Siina ku reejin doona madaxweyne Muuse Bixi madaxweynaha doortay muddo badan buu shaqeynayay madaxweyne Siinaayo maxaa 7 sano ka bacd ku xasuustay madaxweyne Siina madaxweyne Siinaayo runtii waxaan ku xasuustaa madaxweyne aan la soo shaqeeyay oo aad u qiimo badan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waqtigii dalka talada soo hayay waqti aan soo wada shaqeynay iyo waqtigii halkan ka dhaw soo jireen taba mar walba agteeda sharaf iyo qiimo weyn u kaleey waxaanan ku xasuustaa runtii de shaqo wanaagina soo dhaxmaray wuxuu ahaa madaxweyne shaqada qofka uu dirto waxa weeye ka suga oo waxa weeye ku ixtiraama waxa madaxweyne runtii saaxiibtinimo badan oo yani kula shaqeeya si saaxiibtinimo leh kula shaqeeya dadkiisa yani ay wada shaqeynayaan waxa madaxweyne runtii waxa weeye khibrad badan iyo aqoon badan ay ku duugnayd waayo badan soo maray oo anigu personally waxaan runtii ku xasuustaa xogtii faraha badnayd iyo xikmadii aan ka faa'iideysan jiray ayaan personally ku xasuustaa dalkan development-kii uu ka sameeyay iyo intii uu talada hayay intii aan kala shaqeynaynay ayaan ku xasuustaa aad iyo aad u mahadsan hogaamiye arbacada xafladda waxa xilka kula wareegay madaxweynaha cusub Muuse Bixi Cabdi oo tartanka xisbiga ku jirteen ma ka qayb galaysaa munaasabadaasi dhaarta والله أنا ما ننقش السنة منك يقولون أنا ما يحسبون مركز هذا واحد قرشوا نوجي على ما تشرو لكن مستقبلك وحين ودنا وقت جيد هي مركز هو جامية مركز حلال كلام كلو ريجينيو جودي حلو ريجين بالله سارة ورقة صبح وعي شيء يعني إن دين بدن حكومة ضمن كتلة هيزا أي وريجيني سو مدحنا عصومنا وكديدي دائما إنه عاصمة دائما إن بدن هاي توزير كم رح تيسو معلم محط قصعتها إنه ور والله أنا وحبك على مصعد وديمها مركز يوجد بيسينا لو سنة كوربان دولت كتو ديم الدلق ما لها يعني وحوي وشقيني سيو بدنا ولي بوحاس هو بحكي سيربلاس إيو يعني بتشتك زيادة كصوب حدا مركا ما مقل دي لاين اوفيشال هو شيء أما دبو دع يمي أو وحوي دقالة هو صور دعي إن كسر دقالة جود دلق عن كورها يعني هو صور دعشلو لكن سين إن ميزانية دين عايز نتولي في سر الكلام ما مقل deynta kale ee aad sheegtayna maan maqal marka de waxaanan ogeyn ka jawaabnaa kaasoo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xilsi Xaaji Cali Xasan oo wareysi khaas ah tan iyo intii ka dambeysay doorashooyinkii aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee warbaahinta sii ku maadsan yahay in Hon Cable TV oo ka codsada wareysigaasi uu siiyo hogaamiyaha aad ugu madcalin wareysi khaaska yaad siisay aad u mahadsan